afgaaraha siyaasadeed ee isdiidan ee bariga dhexe waa kuwo sababay in gobolkan bariga dhexe uu noqdo mid dhaxal u helay rabshado aan damin kuwaasoo ay qaarkood madaxa la gelayaan qarniyo dheeraad. bariga dhexe oo loo aqoonsaday buqcadda ugu mashaqada iyo rabshadaha badan ayaa ay ka dhaceen ku dhowaad ilaa 3 dagaal oo u dhexeeyay qaar ka mid ah dalalkani ku yaala gobolkani. haba ugu sii darnaadaan dalalka Liibiya, Yemen, Suuriya, Ciraaq oo noqday dalalku guul daraystay inay helaan amni iyo nidaam dawladnimo 20kii sano ee ugu dambeeyay. marka laga yimaado afkaaraha iyo danaha siyaasiga istiidan ay u soo iibgeynayaan wadamada reer galbeedka, iyana waxaa jira afkaaro siyaasadeed iyo kuwo diimeed oo ay kala aaminsan yihiin wadamada ku yaala gobolkani. waana sababtay in jabhado iyo kooxo diimeedyo qoryo dable loo ordayay la isaga soo gudbiyo xuduudaha ay dalalkani wadaagaan. kacdoonada rabshadaha wata abuurista jabhado magacyo kala duwan siita haba ugu sii sheeganaadaan kooxaha jihadaloosayaasha ahi. waa kuwo ay inta badan isu adeegsanayaan labada dal ee inta badan saameynta xoogan kula siyaasadda bariga dhexe. labadaasi dal ayaa kala ah dalka Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga oo iyagu aan weligood dagaal toos ah isku qaadin, balse isu adeegsada dagaal afka ah oo ku qotoma afkaaro siyaasi iyo kuwo diimeed. waana ta keentay in dagaalka noocaas ah ee dal waliba ka hagayo daaha dabadiisa uu ku qaado ka kale loona aqoonsado dagaalka qabow ee bariga dhexe. Kenneth Pollock oo sarkaal sare ka ahaan jiray waaxda sirdoonka dalka Mareykanka una qaabilsanaa arrimaha dibadda CIA walibana isagoo ahaa xeeldheere ka faallooda arrimaha militariga bariga dhexe gaar ahaan gacanka Persia, waxa uu sheegayaa in dalalka Sacuudiga iyo Iiraan ay yihiin kuwa xaabo ku shidaya inta badan rabshadaha iyo dagaal diimeedyada bilaa jihad ah ee ka socda bariga dhexe, kuwaasoo khataro badan abuuraya isla markaana ay fursado u arkaan uu mid waliba ka kale ku waxyeelayn karo. Both the Saudis and the Iranians see these civil wars as both tremendous threats and also potentially enormous opportunities. Guugiga Carabta ay bariga dhexe sanadkii 2011 waxa uu ahaa duufaan siyaasadeed oo ka dhacay inta badan qaar ka mid ah dalalka Carabta ee bariga dhexe, kaasi oo mowjadahaasi kacdoonada ah ay galaafteen kaligood taliyayaal muddo aad u dheer ka soo talinayay qaar ka mid ah dalalkaasi. khubarada ku xeel dheer isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxay sheegayaan in kacdoonadaasi ay ahaayeen kuwo ay si dadban ugu lug leeyihiin dowladda Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga. waana sababta keentay in taariikhyahanada iyo xeeldheerayaasha siyaasaddu ay ku macneeyaan dagaalkani daaha dabadiisa laga hagayo ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Iiraan inuu yahay dagaal qabow, maadaama aanu jirin dagaal toos ah oo dhex maray labadani dal. haddaba dagaalkii ugu horreeyay ee loo bixiyay dagaalka qabow waxa uu ahaa mid haatan laga joogo ku dhowaad qarni barkii dhex maray dalalka Mareykanka iyo wixii la isku oran jiray midowgii Sofiyeetka, kaasi oo noqday midkii ugu caansanaa wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida ee 1945kii. xilligaasi labadani dal oo mid waliba u soo xulduubtay sidii uu noqon lahaa awoodda koobaad ee aan lagaga daba hadlin, kuwaasoo tartan ugu jiray inay dal walba uu calankiisu ka dulboodo dalalka kale ee ku yaala daafaha caalamka. inkastoo aanu jirin dagaal si toos ah oo la isku adeegsaday hub oo dhex maray dalalkani, haddana mid waliba waxa uu ciyaarayay dagaal diblomaasiyadeed oo ku saameysanayo xulafo uu mid waliba ku yeesho dalalka kale ee dunida, iyadoo keentay inay kala taageeraan kaligood xilligaasi ka talin jiray wadamo ka mid ah dunida iyo inay abuuraan jabhado kala taabacsan. waxaanay garoodda isku dareen goobo ku yaala wadamo kale ay ugu caansan yihiin wadamada Vietnam, Afghanistan iyo Cuba. haddaba sidaasi salamid ah dalalka Sacuudiga iyo Iiraan waa labada dal ee ugu awoodda weyn bariga dhexe haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo cududa ciidan, waana ta keentay inay isu muuqdaan labadani dal iyadoo uu mid waliba doonayo inuu noqdo awoodda koobaad ee ka arrimaysa bariga dhexe. aynu dib ugu yaro noqono taariikhda siyaasadeed iyo hayaanka nolosha ee dal waliba u soo maray sidii uu noqon lahaa
awoodda koowaad ee aan lagaga daba dhufan ee ka arrimisa bariga dhexe si aynu u fahanno halka ay sartu ka qudhunsan tahay. bilowgii qarnigii 19aad bariga dhexe iyo jasiiradda carabta waxaa ka arrimin jirtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee fadhiisinkeedu ahaa dalka haatan loo yaqaano Jamhuuriyadda Turkiya. dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida markii ay meesha ka baxday awooddii jasiiradda carabtu waxay noqotay mid ay ka soo ifbaxaan kooxo ku kala abtirsada qabaa'ilka carabta. kooxahaasi waxa ay noqdeen kuwa awood isku muquuniya maadaama ay meesha ka baxday khilaafadii islaamka ee Cusmaaniyiintu gaar ahaan dhulweynaha Sacuudiga. qabaa'ilkaasi waxaa ka soo dhex baxay qabiilada reer Aalu Sacuud oo kuwii kale ka faramoorojisay gacan ku haynta dhulka Sacuudiga, waxaanay noqotay qabiilada ku fadhiisatay ilaa maanta kala dhaxasha carshiga boqortooyada ah ee dalka Sacuudi Arabiya. 1932 waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen magaca dhulweynaha dalka Sacuudiga oo ay loo bixeen boqortooyada Sacuudi Arabiya. 6 sano kadib waxaa lagu guuleystay markii ugu horeysay in daaha laga rogo kheyraadka shidaalka ee dalkaasi ku duugan. dadka ku dhaqan boqortooyada Sacuudiguna waxay noqdeen kuwo muddo yar gudahooda tuuray dhiishii faqriga, iyadoo dhaqaalihii ka soo baxayna ay u adeegsadeen dhisidda kaabayaasha arrimaha bulshada sida sudhigida qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Sacuudiga, hirgelinta wadooyinka isku xidha dhulweynaha Sacuudiga oo ay ka jirtay nolol aad u adag maadaama uu badan yahay dhulkaasi saxare ay ku noolaanshihiisu adkeyd markii hore. intaasi kadib waxa ay reer Aalu Sacuud xilfi wadaag hore la samaysteen dalka Mareykanka oo xilligaasi noqday dawladda ugu awoodda badan caalamka. muddo yar kadibna waxaa dhinaca bari ee gacanka khaliijka carabta ka soo dhex baxday awood u dhiganta dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Iiraan. dalka Iiraan inkastoo uu yahay mid kala mataansan dalka Sacuudiga dhinaca shidaalka isla markaana ay ku nool yihiin bulsho ka badan dalka Sacuudiga oo ku abtirsata muslimiin, haddana waa dal soo maray mashaakilaad siyaasadeed iyadoo ay dhowr jeer duulimaadyo kala duwan ku qabsadeen qaar ka mid ah dalalka xilligaas uga awood weynaha caalamka. bartamihii qarnigii 18aad waa bilowgii qarnigii 19aad waxaa qaybo ka mid ah dalka Iiraan qabsaday dalka Ruushka. 1914kiina waxa uga dambeeyay oo iyana gacanta ku dhigay dalka Iiraan boqortooyada dalka Ingiriiska. inkastoo ay kacdoono xoogan ku saareen dadka reer Iiraan dalalkii u kala dambeeyay awoodda maamul ee dalkooda, haddana waxaa mar labaad duulimaad rogaal celina ku qabsaday dalkaasi 1941kii boqortooyada Ingiriiska. si kastaba ha ahaatee 1953 waxaa dalkaasi Iiraan ka dhacay inqilaab meesha lagaga saarayo ra'iisul wasaarihii dalka Iiraan ee xilligaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Mossadegh. inqilaabkaasi dhacay oo ahaa dhagar qarsoodi ah oo ay soo maleegeen dowladda Mareykanku waxaa xukunkii dalkaasi la wareegay boqor Shaah oo dalkaasi ka dhigay mid ay biyo dhigtay mabda'a cilmaaniyaddu isagoo noqday mid ku shaqeeya afkaaraha reer galbeedka. inkastoo uu dalka Iiraan xilligaasi noqday mid afduuban keligii taliye fuliya danaha reer galbeedka isla markaana ku caanbaxay caburinta iyo cagajuglaynta dadkiisa, iyadoo ay dalka Iiraan u noqday mid sii muquurtay dhaqaale xumo iyo mowjado musuqmaasuq ah oo hadheeyay nolosha bulshada dalkaasi ku dhaqan. bilowgii 70-meeyadii Iiraan iyo Sacuudigu waxa ay noqdeen laba dal oo si weyn dhaqaalahooda ugu tiirsan yahay shidaalka qeydhin, kuwaasi oo gacan saar la leh dalka Mareykanka xilligaasi xilfi wadaag labadooduna ay la ahaayeen. walow ay jirtay kala duwanaansho xagga afkaaraha diimeed ay kala aaminsan yihiin shicibka ku dhaqan labadani dal ee sunnaha iyo shiicadu, haddana may jirin cadaawad muuqato oo ka dhaxaysa labadani dal. waa kan mar kale Kenneth Pollack oo ka warbixinaya sida ay labadani dal ugu kala duwanaayeen xilligaasi awoodda maamul ee ka soo fusha shicibka dalkani, kuwaas oo dadka reer Sacuudi Arabiya ay si weyn uga dambeeyaan nidaamka boqortooyada ah ee ka arrimiya dalkooda, halka ay dadka reer Iiraan xilligaasi ku wadeen kacdoono shacab oo ay kaga soo horjeedaan nidaamkii cilmaaniga ah ee uu hogaaminayay boqor Shaahii ka arrimin jiray dalkaasi. At the end of the day, the Shah of Iran, powerful as he was, simply didn't have the same control over his people or ultimately the same legitimacy and affection that the Saudi people felt toward their monarchy.
bilowgii 1970-yadii qorshayaashii isbedelayay ee ku salaysnaa cilmaaniyadda lagu talax tegay ee ka socday dalka Iiraan waxa ay noqdeen kuwo markii dambe galaaftay oo mijaxaabiyay boqorkii muddada 30 sano ku dhawaad ka arriminaya dalkaasi Iiraan waxaana dalkaasi ka curtay markii ugu horeysay waxa maanta loo yaqaano Jamhuuriyadda Kacaanka Islaamiga ah ee haatan ka arrimisa dalkaasi iyadoo dhidibada loo taagay golaha sare ee hogaaminta ruuxiga ee Iiraan oo halka lagu go'aamiyo go'aamada masiiriga ah ee ku jihaysan mustaqbalka dalka iyo dadka reer Iiraan wax walibana waxa isbedelan 1979 xilligaasi markii afka ciidda loo diray nidaamkii ku dhisnaa keligii talisnimada ay boqorshaha xilligaasi waxa dhacay in kumanaan shacab ah oo gadoodsanayo horkacayo hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi uu Ayatollah Ali Khamenei ay goosteen jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah caasimadda Iiraan ee Tehran iyadoo iyo goobaha ku yaalaan xafiisyada dawladda sidoo kale waxa ayna xusid mudan in shacabka gadoodsane ay gudaha u galeen safaaradii uu dalka Mareykanku ku lahaa dalka Iiraan ee ku taalay caasimadda dalkaasi ee Tehran kuwaasi oo waxyeello baan u geystay agabkii iyo shaqaalihii safaaradda shakhsiyaadka sida weyn loogu xasuustay horkacaya waxyeelaynta safaaraddan ayaa la sheegay inuu ku jiray Ahmadinejad oo ahaa madaxweynihii kan imika Iiraan ka taliya ka horeeyay Ahmadinejad oo ahaa nin si weyn uga soo horjeeda wadamada reer galbeedka isla markaana ku caanbaxay horumarinta iyo kobcinta awoodda nukliyeerka ee dalka Iiraan oo la isku mari lahayd 20 sano ee ugu dambeeyay ayaa lagu sheegaa in laga hayo muuqaallo iyo sawirro tilmaamaya inuu xilligaasi ka mid ahaa dhalinyaradii xoogga ku gashay safaaradda Mareykanka ay kacdoonka shacabku la wareegtay dadka reer Iiraan Kenneth Pollack waxa uu markale sheegayaa in xiisadda Iiraan iyo Sacuudiga ilaa maanta taagana ay soo bilaabantay xilligaasi uu kacdoonku uu hogaaminayay Ayatollah Ali Khamenei meesha lagaga saaray nidaamkii boqorshaha ee 1979 It's really in 1979 when Ayatollah Khomeini and the Islamic Revolution overthrow the Shah that the real tension between